الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaalayaal waxaan guda jirnay maadadeennii FB casharkan waa casharkii lixdan saddexaad waaya casharkan wuxuu ku xiran yahay kii ka horreeyay maanta waxaa qaadan doonaa ciwaanka casharka saa ku aragtaan waxaa weeyaan read only properties mana waaya read only properties weeyaan casharka ciwaankeena read only properties marka maxaa laga wadaa shalay waxaan soo qaadanay casharkii structure-ka ahaa dib ayaa ugu laaban kartaan casharkii lixdan labaad marka waxaan soo qaadanay shalay anigoo sameynay labadan level macnaha waaye labadan level ayaan soo sameynay kadib waxaan soo daawacnay magaca koowaad iyo magaca labaad macnaha waaye marka waxaa u baahan tahay markaa VB ku jirta daa lacag u baahato in adiga waxba qorin wax soo daawacda macnaha kaba soo qaado kale hadda Facebook soo kale waxaan Facebook sidaan naqaano wuxuu leeyahay email iyo password macnaha email password qofka userka ayaa soo gelinaya macnaha waaye emailku galaa kadib passwordku gelinaya macnaha waaye lacag hadda u baahato in emailkii passwordka lagu soo daabaco maxaa sameynaysaa macnaha marka waxaa isticmaal maanta waxa la yaqaan read only macnaha soo akhri adiga ma qoraysid macnaha adiga waxba qori maysid wixii la qoray ayaa soo daabacanaysa marka hadaa rabto wax qoran in lagu soo daabaco waxaa isticmaalaysaa read only properties macnaha propertyga loo yaqaano read only macnaha read only af Soomaali waa soo akhri macnaha waaye magacii waaye qofka userkii soo galishay passwordkii soo galishay waxaa rabta in lagu soo daabaco marka maxaa sameynaysaa program waxaa isticmaalaysaa la yiraahdo read only properties macnaha read only properties ma ku faahfaahintay macnaha waa shay qoro arabto in lagu soo akhriyo macnaha hadda u fiirsan labadan anaga qori doono kadib labada waa inta passwordkan gali waa maxaa geli username ka gali doona inta waxa gali doona password kadib harna he labaduba in halkaas lagu soo daabaco macnaha waay marka waa fahanteen ayaa filaa macnaha shan labadan ayaa noo sameysnay maanta kan ayaa ku soo diray text box iyo label waay oo ku soo darsanaysa kadib waa ka saamina aan isla aragna macnaha read only properties ina fahanteen ayaa hadda practical oo nimaana macnaha waay sal meesha structure ku sameysanay ayaad imaanaysaa kadib halkan ayay meesha ka imaanaysaa macnaha marka waad inaad samaysid directed property maxaa sameynaysaa read only kol eriga waxaa qoraysaa publicly meel kasta hadhow oo uga soo muuqda macnaha kadib waxaa qoraysaa read only waa kaas oo soo boodi oo jidda macnaha read only property subidis kadib magac ina u bixisaa laga rabaa macnaha aniga waxaan ugu bixinaana magac ayaa u bixinayna macnaha waxaa rabta ayaa u bixi kartaa xy adiga waxaa rabta oo la bixi kartaa macnaha kadib waxaa ka dhiganaynaa wax lagu soo daaco wax maxay markaas string macnaha hadaa rabta numberna waa gashanaysaa macnaha waay kadib sidaas ayaa lana kadib inter ayaan daawan doonaa u fiirso macnaha meeshaan hadhow waxba kasoo boodi doona macnaha waay marka shay la soo akrina noo sheeg ayuu ku leeyahay variablada arabta inuu soo akriyo noo sheeg ayuu ku leeyahay marka get ayuu isticmaali doonaa inter ayaan isticmaal u fiirso automatic sumid get ayuu soo qoray soo bedid waay shayga arabta in lagu soo akriyo noo sheeg ayuu ku leeyahay macnaha kadib halkan waxaan leedahay return waxaa soo daawacnaan leenahay noo soo daawac ayaan leenahay waay variablekan magac koowaad wixii lagu soo magac koowaad soo bedid wixii lagu soo qoray noo soo daawac ayaan hadhow marka waxaan rabnaa in isku dhega marabno calaamadda isticmaalna waa join ka taqaana marka la joogo VB-ga calaamadaas u yahay kadib si hadhow space u dhaxay saas ayaan leenahay kadib hadana calaamad join ka isticmaalna hadana xaleena magac labaad noo soo daawac macnaha magac labaad variablekaas wixii lagu shubay noo soo daawac hadda waa kaas hadhow hadda inta imaado waa kaas oo ka baxaa maarad qalabka errorki waay hadda waa sameynay marka waxa dhahnay noo soo daabac ayaan dhahnay property haduu noo sameeyay yahay marka sidee qiimo loogu shubaa waxa imaanaysaa sabki aan shal isticmaalayna macnaha sabki aan shal isticmaalayna ayaa imaanaysaa macnaha kadib waxa la text box 3 anaga magac waxba ka bedelin sidiis la iskaga soo qaadanay macnaha text box 3 text ala waay qoraalada ku jira waxay la mid yihiin aylaanahay maadaama in la soo daabaco sabka magaciisa isticmaalna variablekaas oo ah mark waay dhibic ayaa isticmaala marka dhibic isticmaalo u fiirso meeshaan ayuu soo galay variable waay read only property aan sameeyna waa kana inta ay amaana soo midid waa kaas dusda imaado waa kaas ku sharx mudido public read only properties macnaha weeyaan waa ku dhufan macnaha marka hadda sidaas ayuu maartay lagu soo daabac macnaha hadda save hadaan dhaho waay meeshaan isticmaalo dhow hadda meeshaan waxa ku shubnay shal cashka qod kale Maxamed jay tamana soo midid inuu noo soo daabac u baahna marka waay kadib waxaan leenahay start ila soo macnaha waay hadda botolkan ayaa riix la soo inta lagu soo qorxano inta lagu soo daalooday macnaha inta magaca labaad macnaha kadib labada magac in noo soo daawacay u baahna waay sumidid Maxamed Jayd sumid intana waa Maxamed
intana waa jayta kadibna labadu ay aswato ayuu noo soo daacmay soo mujid hal hadda dawad inta daarta baasid qort ama qort username-ka intana baasid kadibna hadda waa in lagu soo dabaco waa isticmaalaysa kaliya read only properties mina waa fahanteen ayaa filan read only property waa kaliya waxaan sameynay waa sameysanay read only property public ayaan ana kadib waa sameysanay magac ula baxnay kadib waxaan ana labaas wixii lagu soo dabaco hadhow noo soo qor anaga wax qiimo kuma shubin mina kadibna meesha sabka ayaan imaanay kadib waay qaabka waay wixii lagu shubay ayaan u sheegnay kadibna waa kana halkan ayagu amina waa inuu intaas kaliya bis read only property waxa weeyaan waay qiimo hor ugu jiray values ama macluumaad hor ugu jiray in lagu soo daabaco kaliya mina oo intaas kaliya daarta in lagu soo daabaco programkan isticmaalaysa ah read only property ila fahanteen ay cashka filaya cashka asxaabta Soomaaliyeed nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.